بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. iyadoo aan soo sharaxnay casharada la xiriira forex-ka website-ka annaga toos waxaan ku xirannahay forex.com oo annaga mar walba waa idin sheegay tababarka kadib waa inaad ku xirnaataa website caalami ah oo investment ku siin kara oo investment ku awoodid inaad ku sameysid oo ku aqoonsan kara client. marka forex.com haddaada ku jirin oo Soomaali ama dad kale oo xafiisyo leh hoos tagto xoogaa difficult bay kugu noqonaysaa inaad sameyn karto ama awood u yar teeda kale qof hadduu ku yiraahdo bishii waxaa helaysaa intaas ma ogaan karo asiga qofka naftigiisa aan ogaan karin oo ku dhahayo waxaad ka sameynaysaa intaas ma jiro qof ogaan kara inta laga sameeyo bishii haddii investment aad sameynaysa aniga ma fahmi karo laakiin aniga toos waxaan ku xiranahay website-ka oo mar walba waxaan sameeyaa inaan website-kooda soo galo ama inaan application-ka aan soo degsado forex.com waa kaas aan ku xiranahay halkaa ka fiiri email-kayga mar walba waxaa ka helaysaa waka active really trading inaad sameyn karta really trading oo tababar toosa deposit baa sameyn kartaa draw baa sameyn kartaa withdraw macnaha lacag baa la bixi kartaa log out waa ka bixaysaa markaa aragtid waa soo galaysaa computerkaaga demo marka really account markaa usoo gudubto ayaan ka hadlayaa tan halkan aan ku jiro waa euro iyo USD isku bedelkoodii email ahaan baa ugu xirnay haddaan doono anigu ma isticmaalayo maxaa la yidhaahdaa ma qasab inaan software isticmaalo softwarekan computerkayga ku jiraa laakiin haddaan rabo waxaan isticmaali karaa emailkooda toos inaan ku xirnaado halkaas ayaan ka gashan karaa waxaan rabo. Okay, forex waa suuqa ugu weyn caalamka kambaniya yaryar oo xafiisyo leh oo hoostagaa jiro oo loo sii maro way jiraan. IML waa taw kambani weyn oo hoostaga forex-ka toos hoostaga laakiin kambani ay dad iska sheeganayaan way jiraan see loo kala ogaanayaa marka waa dhibaato taas. Okay, halka aan joogno waa gudihii forex.com waxaan ku jirno halkaa marka assets totalkaaga halkaas uu imaanaya markaad maal gashato hadda aniga waxaan ku siyaa tijaabo halkan waxaa imaanaya use assets hantida aad u isticmaalayso sarifka hantidaada macnaha $1 hadday taalo 500 inaad isku celinayso 500 kayd inay tahay koonka ku jirta laga yaaba intaana aad u isticmaalayso sarif available for the operation inta markaa diyaarka ku ah inay operationka gashid khasaaraha ay faa'iidada ku tala gasho. Okay, halkan waa current channels change inta isku bedelayso markaas diyaar ku ah isbedelka markaas sameynayso way lacagta ku bedelayso. Okay, broker-ka lagu sheegayo waa dalaal qof walba broker hadaad maqashaan waa dalaal waayo Soomaaliya iyo hadii Soomaaliya baawur aan iibsanayo oo anoo Soomaali ku nool baawurka ma waxaan ka soo iibsanayaa toos ma shirkaddan ka soo iibsanayaa maya maxaa yeelay baawurta Soomaalida ay iibsato dhan Dubai baa la keenaa dalaaliin baa ka soo gado Soomaaliya u soo raro marka dalaaliintu waxay ku wareegayaan suuqa brokerku waa dalaal ku kala iibinaya lacagahan oo adiga suuqa ku jirta shakhsi baa tahay broker marka shirkadaha ugu waaweyn baa laga brokerkooda la isticmaalaa badanaa. Okay, exchange-ga qaabkaas way qaabka forex-ka lagu xirnaan karo ha ahaato email ha ahaato si kasto. Okay, tababarka marka qaadanayso demo aad ku qaadan kartaa lacagta markaa dhiganayso deposit waa ka Mastercard ama Visa card waa idin soo sheegay sida u gelinayso kaliya halka kaga cad halkan waa amount oo lagu siinayo real account hada furanaysan halkan aad ku dhufanaysaa marka halkan ku dhufto real account maxaa ay soo baxayo su'aasha halkaas ka bilaabanaysaa aka forex-kii oo kambanigii aamini lahayd oo lacagta gelin lahayd halkan aad gelinaysaa deposit-ka lacagta bangi kaarkaaga ayaa sheegaysaa lambarkiisi kaar numberkaaga bangigaaga kaarka ay ku taalo name kaaga holders name full name phone numberkaagi oo soo soconaysa marka postcode city address marka intaas oo dhan geliso ayaad ku save gareynaysaa saa inaan u fahanno waa muhiim jiddan marka lacagta dhiganayno. Okay, iyadoo lacag la gelinayo halkan kaarkaaga la arki karaa lama gelin karo qof halkan practical ku siin karno anagoo gelinayna ma jirto. Okay, marka ku xirnaanta website-ka rasmiga ah ayaa very important ah waana la dhacay saanay ka dhacday halkaas ka dhacday sayso u dhicin
saysa u dhicin saas. Okay, euro iyo USD marka exchange waxaa jira dahab baa jira waxyaabo badan baa jira halkaan hoos ku arki doono. waxaan isku bedelayno lacagaha jatriska halku uu marayo halka kan hal baan faahfaahin doonaa marka cashirka qaadanayno. forexiska marka waxyaabo kala duwan baa halkaan lagu sameeyaa. dad kala duwan oo adduunka ku kulmaan ku jiraan waana company kaliya adduunka ugu weyn. Okay, marka hadda meesha ka soo gashay ku xiran tahay tababarka marka qaadataan haddii qof ah hoos tagtaan qofkaas qof kale hawshiisa laakiin haddii tababar aad qaadatid oo IML aad ku baystay aad ku soo tababaratid caadi adiga forex training toos baad u hoos tagaysaa marka start waa bilaabaysaa marka adiga awood u leh way adigoo awoodeedii leh baa halkan ka bilaabi kartaa. qof kale oo bilaabi kara awoodeeda aan lahayn ma leh for beginner marka website-ka asaa ku wadayo ku hagayo. marka halkan waa the wall of the financial freedom maaliyadda xorriyad maaliyadeed oo adduunka oo dhan ah. start waa bilaabaysaa risky warning training baa laga rabaa riskiga inaad iska ilaalin karto. riskiga waxa weeye lacagtaa ku gashid qof lacagtiisa ogaan karo inay ku dhacaysiin kala ma la oga qof ogaan karaa ma jiro waayo suuqa kor buu u kacayaa gacan hore iyo gacan danbaa lagu soo galgalayaa. Okay, halkaan real account waa halka ka furan lahayd halkaan markaa ku rufto real account meeshaan ka sameyn lahaa wey kan hadda waa training laakiin real account meeshaan ka furanayso waa shay deposit markaa sameynaysaa lacag dhigashada aniga laakiin lacagta kaarkaan oo gelinayo master kaarka ama visa kaarka idima tusin karo waayo awood u melay kaarkaga haddii la arko waa ku dhamaatay waa kan halkaan ka xulan lahayd visa kaar ama master kaar markaasaa markaa bangigaaga ka bilaabaysaa. taa inaa fahanana waa casharkeena ayay qusaysaa. mar alla markaa lacagtaada dhigato wax walba waa sacbay kuu noqonayaan wax walba way furmayaan oo real account baad markaa leedahay. Okay, haddii training aad kusii jirayso waa kusii jiri kartaa oo real account markaas aadan furanayn kaagaan aad kusii jiraysaa oo waxaa ku bilaabaysaa training baa sii wadwadanaysaa training kaaga kusii jiraysaa mar walba laakiin real account waa qasab markaad training ka soo qaadato. marka website-ka isticmaali doontaan ha noqdo forex.com marka waa lay dhacay waxaa ma jirto damaanaad buu leeyahay. Okay, assetiska waa saan kuu soo sheegay start markaa bilaabayso sell iyo buy baa suuqa baa loo kala isticmaalaa casharada iyo signalska oo ka hadli doonaa iyadoo hadba tilaabo aan ka hadli doono. waa cashirkeena si bilowga ah oo aan ugu talagalay forex.com sidaan registration isugu samayn karno. registration code-kan emailka ay kusoo dirayaan mar walba code-ka ay kusoo diraan code-kaas ayay ku weydiinayaan code-kaas aa u isticmaalaysaa waa kan www.forex.com inaad ka isticmaashaan waa muhiim jiddan taasi. marka haddii kambaniya yaryar aad samaysaan idinka ayay taas idin taallaa laakiin kan kuusoo diri kara investment markaad samaynayso code buu kuusoo dirayaa codekaas ayaa u isticmaalaysaa ayaa kusoo gelaysaa codeka halkaan aa laguu soo dhigayaa oo email marka laguu soo diro code numberka ayaa raacaysaa. halkan waa booqan kartaa visit light forex blogkooda inaan fahno waa very important taas. Okay, mar alla markii aad soo gasho sidaadoo website-yada waxbarashadoo kale soo galay bay la mid tahay code numberka qaadanaysaa toos baa u sameynaysaa investment haddaad rabto toos baa u dhexgalaysaa. marka cashirkan waxaa loogu talagalay forex.com oo toos loo geli karo toos looga sameyn karo businesskan xur wey qof walbaana geli kara qof walbaana forex.com ku qoran kara. halkan waxaa weydiin kartaa orderka ama waxaa weydiin kartaa wax alla wixii searchka aa weydiiso trade ah. Okay, hadda waan fahanay marka lacagta euro iyo lacagta poundka lacagaha kale oo dollarka lacagahaasaa la isku bedelayaa. Okay, Japan xataa iyo euro waa la isku bedelaya. Okay, sicirkaas asaa kugu soo gudbinaya mar walba laakiin adiga waxaa laga rabaa deposit inaad sameysid. Draw baan kuu sheegayaa lacag see loola baxaa withdraw lacagta markaa la baxaysid waxaad isticmaalaysaa withdraw waxay yidhaahdaan lacag la bixid ah haddii ay lacagta cash ku taalo waa ka bangigaaga kala baxaysaa withdraw baa sameynaysa. Okay, waan fahanay in badan history of transfers halkaasaa ka fiirinaysaa deposit iyo draw labadii buu ku leeyahay. Okay, cashirkeenaas aan ugu talagalay website-ka iyo sida loogu xirnaan karo iyo sida loo soo sameeyo
aad u samayn kartaan halkaas uu noogu ekaan doonaa iyadoo cashar kale aan isaga imaan doono sidaa darteed fi amaan allah wasalaamu calaykum